مدن قدومية كحجينه مدن يعني مروين وزارة ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa sharaf weyn u ah inaan golaha sharafta leh u soo bandhigno sharciga hindisaha shirkadaha ee Soomaaliya. Sharciga shirkadaha waa qayb ka mid ah sharciyada muhiimka u ah dalka wuxuuna fududeeyaa dhismaha diiwaangelinta iyo maamulka shirkadaha ganacsiga. waa sharci xeeriya shirkadaha maalgashatada milkiilayaasha maamulka shaqaalaha iyo bulshada inteeda kale. wuxuu ilaaliyaa xuquuqda maalgashayaasha milkiilayaasha macaamiisha iyo bay'adda intaba. sharcigan hindisihiisa iyo hogaamintiisa iyo jihayntiisa iyo isku dubaridkiisa intaba waxaa lahaa oo ka soo shaqeeyay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. waxyaabaha dhaliyay in la sameeyo sharciga shirkadaha waxaa ka mid ah inuu yahay qayb ka mid ah sharciyada muhiimka u ah ganacsiga iyo warshadaha. wuxuuna daba socdaa sharcigii maalgashiga iyo heshiiskii London ee wadatashiga dowladda iyo ganacsatada public private dialogue si loo hormariyo dhaqaalaha dalka. wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay xiriirka ganacsi iyo warshadaha ee aan la leenahay adduunka, fursadaha maalgashiga ee dalka, shaqo abuurka iyo dardargelinta qorshaha kobcinta dhaqaalaha. wuxuu sharcigan inoo sahlaa ka mid noqoshada iyo isbahaysiga ganacsiga adduunka sida WTO World Trade Organization, COMESA iyo EAC East African Community iyo suuqyada kale oo la midka ah. wuxuu waxtar u leeyahay horumarinta dhaqaalaha iyo soo jiidashada maalgashiga shisheeye iyo kan gudaha intaba. diyaarinta sharciga shirkadaha Soomaaliyeed waxaa iska kaashaday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, sharciyaqaano Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabi ah. wuxuuna soo maray marxalad kala gedisan oo ay ugu horeysay dib u eegis lagu sameeyay sharciyadii ganacsiga ee dalka iyo kuwa dalalka Islaamka iyo wareysyo kala duwan oo lala yeeshay hay'adaha dawliga iyo ganacsatada dalka. wada hadal iyo dood dheer kadib nooca sharci noqon doono iyo baahida loo qabo la tashi fara badan kadib iyo fikrado fara badan oo la isweydaarsaday waxaa la qaatay nooca Romano Germanic law loo yaqaan kaasoo shuruucda Soomaaliya ay ku salaysan tahay. dhowr qoraal akhris iyo turxaan bixin kadib waxaa la sameeyay qoraalkii ugu dambeeyay laguna soo bandhigay qodobada sharciga ah. sharcigani ka kooban yahay oo ah 16 cutub iyo 121 qodob. noocyada shirkadaha iyo saami qaybsiga, nidaamka diiwaangelinta, nidaamka kala dirista shirkadaha iyo qasaare qaybsiga, siyaasadda iyo maamulka shirkadaha, kaydka qoraalka, xogta iyo dakhliga shirkadaha intuba waa ku cad yihiin sharcigan. wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo sharciyaqaano Soomaaliyeed iyo gareeqaanka guud iyo bangiga adduunka ayaa ka wada qayb qaatay akhriskii koowaad oo iska kaashaday. kadibna waxaa lala wadaagay ganacsatada Soomaaliyeed, wasaaradaha ganacsiga ee maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda
oo dhammaantood wadatashi lala sameeyey. waxaan usoo gudbinay kadib wasaaradda cadaaladda sharcigan iyo arrimaha garsoorka oo iyaguna aqriyey soona turxaan bixiyey. ugu dambeyntii waxaa la geeyay golaha wasiirada oo lagu ansixiyey, kadibna waxaa loo gudbiyey golaha shacabka oo iyaguna ansixiyey. sharciga shirkaduhu wuxuu muhiimad u leeyahay fududeynta adeega ganacsiga iyo maalgashiga, diiwaangelinta shirkadaha, xogta ganacsiga, fursadaha maalgashiga iyo wixii lamid ah. wuxuu kaloo muhiimad u leeyahay xeerinta iyo kala hagidda maamulka shirkadaha ganacsiga, xuquuqda maalgashiga iyo maalgashadaha iyo maalgashayaasha shirkadaha ganacsiga, dhiirigelinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo soo jiidashada maalgashi iyo shaqo abuur iyo kobcinta dhaqaalaha intaba. sharcigan wuxuu muhiimad u leeyahay xeerinta shirkadaha iyo ilaalinta xuquuqdooda ganacsatada, saamileyda iyo dadweynaha, suuqgeynta wax soo saarka dalka iyo macaamilka shirkadaha adduunka, fulinta ballanqaadkii dowladda ee xoojinta wada shaqeynta dowladda iyo ganacsatada iyo hantiilayaasha, meelmarinta hadafka dowladda ee dhanka sharciyada iyo siyaasadda kobcinta dhaqaalaha oo ka mid ah nolosha isbahaysiga ganacsatada iyo ganacsiga adduunka. mudane gudoomiye ku-xigeenno, mudanayaal iyo marwooyin, hindise sharciyaadka shirkadaha wuxuu waafaqsan yahay dastuurka ku-meel gaarka ah ee dalka, wuxuuna soo maray dhammaan la tashiyadii loo baahnaa. si cadna wuxuu uga jawaabaa muhiimadda siyaasadda dowladda Soomaaliya ay ku horumarinayso dalka. sidaas awgeed mudane gudoomiye ku-xigeenno, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si xushmad iyo sharaf leh aan idinkaga codsanaynaa inaad ansixisaan, maadaama baahi weyn loo qabo dhaqangelintiisa, isla markaana uu mudnaanta koowaad siinayo uuna muhiim u yahay kobcinta ganacsiga, maalgashiga, shaqo abuurka, dhiirigelinta ganacsiga iyo guud ahaan kobcinta dhaqaalaha dalka. mar labaad waxaan idinkaga mahad celinayaa dhegaysigiina, waxaanan idinka codsanaynaa inaad sharcigan oo soo maray dhammaan la tashiyadii loo baahnaa iyo wada tashi guud oo aan la yeelanay qaybaha kala duwan ee sharcigan u quseeyo, inaad sharcigan noo ansixisaan. waana mahadsantihiin. wabilaahi towfiiq.